السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ardayay waxaan maanta dhigan doonaa types of numbers ama noocyada tirooyinka. Ardayda waxaa muhiim ah in ay si fiican u kala fahmaan noocyada iyo qaybaha ay leeyihiin tirooyinku, kuwaas oo naga caawin doona in ay ardaydu casharada soo socda ay si fiican ula qabsadaan. Casharada ugu muhiimsan ardayda ay muhiim tahay in ay si fahmaan ayay ka mid yihiin noocyada tirooyinka. إن شاء الله تعالى عشر كنا عشرة كلا يعني كل جن دونا نوعية تروينك ويسي بديهين لكن ما توح سوق هذا دونا صدح نوع كم ده تروينكاس. تروين كان سوق هذا دونا وحى وهرية ترى اللي يراده نجرا نمبرز كوحة ويه وتروين ترسيمه بسمارة هذا تروين ترسيمه. Soomaalidu waxay dhahdaan waan idhi tirooyin tirsiimo. Tirooyinka tirsiimo waxaa laga wadaa tirooyinka qofku markuu wax tirinayo uu adeegsado weeye. Macnaa marka wax tirinaysid xagee ka bilaabaysaa? Waxaa ka bilaabaysaa kow waa ka bilaabaysaa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baa dhahaysaa. Laakiin marka wax tirinaysid ka bilaabi maysid eber ma dhahaysid eber macnaha tiro wax markii la tirinayo looma isticmaalo Soomahan. Laakiin markii wax la tirinayo xagee laga bilaabaa kow laga bilaabaa. Kow waxa lagu xishaa 2 3 4 5 saas way tirooyinka tirsiimo saas noqonayaan. Marka tirooyinkaas qofku tirooyinka ka bilowda hal ka bilowda kow ka bilowda baa waxa loo yaqaanaa natural numbers ama tirooyin tirsiimo loo yaqaanaa. Macnaha tirooyinka asalka ah bay ka wadaan tirooyinka asalka weeye. Marka maxaa dhahaysaa haddii lagu dhaho tirooyin tirsiimo waa kuwee waxaa dhahaysaa waa tirooyinka ka bilowda hal baa dhahaysaa ama tirooyinka markii wax la tirinayo loo isticmaalo ayaa loo yaqaanaa tirooyin tirsiimo ama natural numbers. Tirada lagu xigto waxa weeye ardayay whole numbers weeye. Whole numbers waxay noqonayaan dhammaan tirooyinka oo dhan weeye laakiin maxaa lagu darayaa eber baa lagu dar. All counting numbers together with zero forms the test of whole numbers weeye. macnaheedu markii eber lagu daro tirooyinka tirsiimo maxay ka bilaabanayeen eber waxa ka bilaabanaya hal bay ka bilaabanayeen laakiin markii eber laga hormariyo oo saan laga dhigo macna eber 1 2 3 marka la dhaho 4 5 6 7 8 iska soconaya wixii la mid ah macnaha tirooyinkaas eber ka bilowda ilaa ay dhamaadka lahayn tirooyinkaas waxa loo yaqaanaa whole numbers waxa la wadaa waa dhammaan tirooyinka oo dhan weeye. macnaha way whole numbersku waxay koobaysaa dhammaan tirooyinka oo dhan ayay kulminaysaa dhammaan wax tiro la yiraahdo dhan ayaa ku jira whole numbers eber labo eber hal labo soco marka intaas oo dhan tirooyinka eber ka bilowda ba waxa loo yaqaanaa whole numbers weeye ama dhammaan tirooyinka tirsiimo oo lagu daray eber ba waxa loo yaqaanaa whole numbers. marka halkan wuxuu ku sheegayaa eber casharada labadan hore waxa in uu qoro qaab Soomaali in uu qoraa rabay laakiin Ingiriis baa markii hore iga noqotay. Eber maxaa la yiraahdaa eber waxa la yiraahdaa waa tirada kaliya ee whole number ah. Waatan whole number maxaa ku jira eber baa ku jira waa tirada kaliya ee whole number ah baa la yiri ee aan ahayn natural number eber baa ku jira maay hal buu ka bilowdaa sababta waa tirooyinka tirsiimo weeye. tirooyinka marka wax tirinayso isticmaalaysid waxa loo yaqaanaa natural numbers laakiin whole numbersku eber wuu ku jiraa sadarteed eberku waxa weeye waa tirada kaliya ee whole number ah ee aan ahayn natural number macna tirooyinka tirsiimo ka tirsaneen sababta tirooyinka tirsiimo waxay ka bilowdaan hal bay ka bilowdaan laakiin tirooyinka whole numbersku eber bay ka bilowdaan hal labo saddex saas ay u jiraan. casharkeena midkeena saddexaad waxa weeye even numbersku maxaa weeye even numbers waxa weeye waa tirooyinka ay laba u qaybsanto weeye. waa numbers divisible by 2 smahin tirooyinka mataqana ay ama number divisible by 2 tirooyinka laba u qaybsami karo waxa loo yaqaanaa even numbers baa loo yaqaanaa. tirooyinkaas waxa kamid ah waan idhi laba kamid ah 4 ama 4 6 8 10 12 16 14 kada 16 18 tirooyinkaas sababta ah hada laba markii loo qaybiyo laba maxaa ka soo baxa arday 2 laba loo qaybiyay hal baa ka soo baxa. afar loo qaybiyay labana maxaa ka soo baxaya laba loo qaybiyay hal weeye laba afar loo qaybina waa labo. 6 markii loo qaybiyo laba maxaa ka soo baxa laba loo qaybiyay waa hal 6 laba loo qaybiyana waa 3
sida qaybta ku timina waan soo sheegnay casharadeen hore kusoo sharaxnay oo see ku timaan idhi markii la dhahayo haltusaan kale 8 loo qaybiyey 2 kale waxa ka timi 2 oo lagu dhuftay tiro maqan oo keenaysa 8 macnaha way ama waxa dhigi ka dhaw kale 2 qof sidee bay 8 qalin u qaybsan karaan 2 qof markay halkan taagan yihiin 8 qalin se ugu qaybin ka dhaa su'aalo kale halkan Axmed baa taagan u soo qaado halkaana Cali baa taagan oo u soo qaado samarkay yihiin 8 halkan waxa ku taal 8 xabo 1 2 3 4 iyo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 qalinka koowaad waxa qaatay Cali baa qaatay xabad buu qaatay xabadana waxa siisay kan Axmed baa siisay sana Cali baa siisay labadii maxay kala qaateen hal iyo hal bay kala qaateen Axmed baa siisay xabadii labaad labo haystaa Calina xabadii labaad baa siisay Axmed hadana tii saddexaad baa siisay Calina tii saddexaad baa siisay labadoo maxay haystaan 3 kan waxa soo 1 2 3 kana 1 2 3 buu haystaa tii ugu dambeysay waxa siisay Axmed Calina waxa siisay tii ugu dambeysay mid walba muxuu haystaa 1 2 3 4 kana 1 2 3 4 buu haystaa marka sida macnaha waxa laga wadaa marka even numbers ku dhahayo waxa weey waa tiro walba oo laba u qaybsanto aan jajab gelin way jajab ma geliyo tiro walba marka laba loo qaybiyo tiro sax ay soo baxayso tan kale 8 loo qaybiyay laba maxaa soo baxay laba u qaybiyo hal sababtoo waxa dhahay tiro laba marka lagu dhufto 4 8 kiin soo tirade way waa 4 way soo 8 loo qaybiyo labana waa 4 hada laakiin hadda di 9 dhaho 9 laba loo qaybiyo maxaa ka soo baxaya doo uma qaybsami karo macna uu qaybsami kara maxaa soo baxaya 4.5 soo baxaya laakiin bunti waa galay lama bahana tiro waxa markii laba loo qaybiyo si sax ah tirada u keenaysa taas waa loo baahan yahay sababta tiradaas maxay noqonaysaa waa nidi tiradaas waxay noqonaysaa waa nidi waxay noqonaysaa tiradan even numbersku waa tiro markii laba loo qaybiyo tiro sax ay soo baxayso taas waxa loo yaqaanaa waxa loo yaqaanaa even numbers laakiin 9 iyo 10 dambe ku dhigan doona tirooyinka yihiin ardayda waxa sameeyay inay 10 ku ceelisan oo ma taqaana even numbersku si fiican u fahantaan sidoo kale najar numbersku macnaha muhiimadu waxa weey inay kala garan kadaan tirada ma najar number ba ma tirooyinka siyomiya tirooyinka waxa ka bilowda man hal tirooyinka whole numbers ever ba ka bilowdaan tirooyinka ma taqaana even numbersku waa tiro walba laba qaybsato sida waa inay u kala garanaysaan weey